agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland mudane Axmed Abakar Maxamed oo maanta waraysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga Real TV waxa uu ka hadlayay halka ay ku dambeeyeen ardaydii ku dhacay imtixaanaadkii shahaadiga ee fasalada afraad ee dhawaan ay qabatay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland. agaasime Axmed Abakar Maxamed waxa uu ka hadlay ardayda qaadatay waxbarashada bilaashka ee wasaaradda ugu tabarucday ardaydii ku guuldareysatay inay u gudubto jaamacadaha ee ku dhacay imtixaanaadkii shahaadiga. waxa uu sheegay in tiradii loogu talagalay inay soo noqoto aanay suurtagelin taa beddelkeedana ay yimaadeen kala badhow badh ardaydii dhacay. agaasimaha oo arrimahan iyo arrimo kaleba ka hadlayay waxa hadaladiisii ka mid ahaa barnaamijka horta dibutayeenta ardayda sanadkan dhacday ujeedadiisu waxay tahay ardayda dib fursad loo siiyo aqoontoodina la koriyo iyagoo kalsooni leh aan mobile isku haleynayeen markaa aqoontooda inay ka qayb galaan imtixaanka bisha koowaad la qaadi doono ee ku celiska marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waalidiinta ardayda keenay laamika Hargeysa 600 arday baa imika markaa waxbarashada ku jira waxaana la filayay markaa 1300 Hargeysa ka dhacay inay ka soo qayb galaan wali mar labaad markaa waalidiinta waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan waxbarashadu waa bilaash ma wax lacag laga qaaday ardaygii buugii baa bilaash lagu siinayaa markaa qofku fursadiisa oo ka faa'iideysta waliba wasaaraddu chance u siisay runtii ardayga taas ku xidhan tahay markaa commitmentkiisa bisha koowaadna ardayga imtixaanka baasa ee darajada looga baahnaa keena waxay noqonaysaa markaa inuu jaamacadaha galo wanaga markaa warqad u qorina taasuna runtii waa fursad la siiyay waxaan kula dardaarmayaa ardayda sanadkan waxbarashada dhiganaysa form 4 ee eerkuwa inay dadaalaan waqtiga ay ugu talagashay wasaaradda waxbarashadu inay qabato imtixaanka ardayda ku guuldareysatay ee hadda waxbarashada bilaashka ay wasaaraddu u fidisay ayaa noqonaysa waqti kala guur oo Soomaaliland ay helayso dawlad cusub oo haddii ay doorashadu u qabsoonto sida hadda loogu wado. Sakariya Sudaysi, telefishinka Real, Hargeysa.